عالم كودا ومال عانو عدل نسي عيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، والله لي العيد مبارك، عيد وناكسن إن شاء الله تعالى. وحاول حلقوينكي أنكو قادن جرني سنوينكي دتك إلوين. والله لساد أكته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحونا بر آذاب تعيد يسنوينك نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ومروا بلا إيمان جري مركي عيد تهي مرك إن شاء الله تعالى. أيقو شن قضب ما إن شاء الله تعالى كدقني أو فضفضد مرك إلهي وحن كرجينا إن شاء الله تعالى إن أنا قولنا أن فهمي دونه عروري هنا نبرد دونه sidoo kalena insha Allah ta'ala maaragtay aan aniga dhaqan gelin doono biidin ilaahay subhanahu wa ta'ala maana ciidan aan ku bilaabi doono. wala sad ogtay nabiga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wuxuuna baray marka hore sunnadu waxa kamid ahaa inuu qofka markuu ciida salaada ciida u socdo inuu maaragtay maalintaas ee dhar wanaagsan gashto oo qabaysto oo ma garanaysaa ee maaragtay salaad isku diyaariyo. waxaan laga wariyay mutaqan Abdullah ibn Umar fi Muwatta Imam Malik inuu maaragtay saas u sameyn jiray. waa sunnada koowaad. midda labaad, nabigeena Muhammad sallallahu rabbi wa sallam alayhi sidoo warina Anas bin Malik wuxuu ka nabi Muhammad inuu intii maaragtay salaadii usan aadin ciidul fitri ciid ramadaan kadib nabi sallallahu inuu wax yar afka gashan jiray oo cuni jiray oo timir oo nabi Muhammad sallam uu cuni jiray. sidoo kale nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wuxuuna baray in maalinta ciida aan takbiirsano oo takbiirta aan la imaano ilaa ma uu ilaahay matqana ilaa ma uu imaamkii oo salaadii u istaago. midda saddexaad waxa waaye sunnada waxa kamid ah in la isku hambaliyeeyo. waxa warinaya mataqana Jubayr bin Nufayr wuxuu leeyahay saxaabadii waxay dhigi jireen oo isku hambaliyeyn jireen, waxay dhigi taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal oo isku maaragtay hambaliyeyn jireen. midda shanaadna waxa waaye nabiga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo noo sheegay oo Bukhari ku jirto jidkii uu salaadii ku aaday muusan ku soo laaban jirin, bal wuxuu sameyn jiray jid kale oo ka duwan kii hore uu raacay ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما أرتقى ذي مرة أنت أسبان كسوق بقوينا يا إن شاء الله تعالى أنكفى إذا سنه. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.